munaasabad ballaaran oo lagu soo dhaweynayay wasiirka warfaafinta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug State mudane Maxamed Aadan Cusmaan Masagawaay oo ayna soo abaabuleen jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Norway ayaa lagu qabtay magaalada Oslo. munaasabadan oo si qurux badan loo soo agaasimay ayaa jaaliyada Soomaaliyeed ee magaalada Oslo waxa ay ku muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin inay noqdaan jaaliyadii ugu horeysay ee la kulanta wasiirka warfaafinta Galmudug State. Masagawaay historygiisa hadii la rabo laga sheekeynaa dadku waxay u qabaan in siyaasadda hadda ku soo beeray. Masagawaay siyaasi hore ayuu ahay dadaal fara badan ayuu dalka iyo dadka Soomaaliyeed hore ugu soo galay. dardaarkan wuxuu yahay meeshu ma qatar badna sida aad aragteen oo hadda ay tahay waa janno Oslo kama duuna dadka loo bahlo qodob balaayo loo sheegaa dhulkan waa dhul nabada waxaan joogi jirnay ayuu maalintii 100 qof lagu dilo waxaan 100 qofna diyan ka bixi jirnay 100 qof oo xalaan ka gali jirnay haddeerna waa nabado bishii hal qof kuma dhinto waa isla ognahay maadaama ay la dhisay dowlad goboleedka Galmudug anaga waxa si qaas ah farxad noo ah inaan maanta ku leenahay wasiir naga mid ah wali wasiiradu way kala culus yihiin wasiirka warfaafinta marka adiga aad tahay wax walba oo dawladdaas ka agdhow adiga ayaa ka agdhowan doona oo information marka kale annagu waxaan ka soconaa gabdhaha Soomaaliyeed ku nool Norway qaasatan gabdhaha Galmudug waxaanu leenahay welcome. waxaa loo baahan yahay nidaam waxaan leeyahay wasiirkeena waxaan leeyahay ku soo dhawow kaliya laab ku soo dhawow. wasiirka warfaafinta Galmudug mudane Maxamed Cusmaan Aadan oo goobta khudbad dheer ka jeediyay ayaa waxa uu kaga xog waramay jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Norway. waxa uu warbixino la xiriiro xaaladaha siyaasadeed nabadgelyo tan dhaqaale looga dhageystay wasiirka warfaafinta Galmudug mudane Maxamed Cusmaan Aadan Masagawaay isagoo jaaliyada Soomaaliyeed ugu warbixiyay tan iyo markii la dhisay maamulka Galmudug isagoo dhinaca kalena soo bandhigay baahiyaha qurba joogka Soomaaliyeed ee kaga aadan dib u dhiska iyo horumarinta deegaaneed. u baahan tahay meelihii la tegi karay tigidii ka warqabidii u baahan yihiin mihii aan la tegi karin waxay u baahan tahay si loo tegi karo in loo howlgalo inaad u qaylo qaado naftirkeeda energy inaad cadaadad diyaarad ka qaadato wasaaradda gaashaandhigga aad tagto aad tiraahdo dhowr boqol oo qof anaa haysta maxaa logistigooda ugu kaalmay kartaa hotelkaaga adiga qof kaa baxee male haddaa gurigaaga joogtana aday habartaa ay soorsan maxaad keentaa waxaa laga dalbi kara marka jaaliyadaha Galmudug ee dibadaha ku nool xisaabtan iyo ordad ha noo dambeeya horta gurma degdeg ah loo baahan yahay project waxaa qaadan doona dowlado iyo dad kale iyo waxbaa qaadan doona waxbaa lagaaga bedelanaa si aan tan kuu sameeyo maxaan ka hela gorgorootankaas waa dhimee qof taagan oo xayiya oo energy lahaba gorgorootan geli kara haddii la waayo waxa ugu horeyna lagu yabo aan ka kor dhacayna سيدنا وحنا وديدي ربان أدنى نولاشات ربتا Galmudug magaceeda inuu san dhimanuun noolaadaad rabtaa wax dhinna quursoraad qaadan. Usman Xaashi Caana Boore, Somali National TV, Oslo, Norway.